كونية سجال بقولي سجالي اللي حدك مدحوينه ولا دلي طلقة مركب هاي الله يرحمه عبد الرشيد علي شرماركة لا سعانود بالمتوكتي شن مالمود كبعدنا انقلاب كبار دحين انقلاب كبار دحين هالكيد شوكتي مركي واحد أنا أقول لندن ما نشوفه واي محمد مريكان بوتشوك مريكان بوتشوك واي markii geeridu dhacday ayuu soo duulay London buu yimid waxaan airportka ayaana nadaas laha aad ka raacdid bay joog buu yiri horta wax say wax noqon doonaan garan maaye anna markaa ubad raadis baan ahaa oo isbitaal baaban ku jiray oo waxa ii socday dawooyin waxba ii socday markaa wuxuu iska dhamayso anaa ku soo cidiray halkii baan ayaanu uu ku soo baxay ana halkii baan markaa ku haray dhowr cisho dabadeed shan cisho dabadeedna waa tii inqilaabkii dhacay waxaan soo noqday inuu 12 cisho iyadoo inqilaabku jiro ayaan soo noqday $380 baan la soo galay dalka markaan hoteelkii aan ku jiray iska bixiyay markii horta safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay London ee baabuurkiisa ayaa day qaadi jiray ama istaalka igeyn jiray maalintii inqilaabku dhacay baa horta gaarigii la joojiyay darawalkii iyo gaarigii la iga joojiyay hoteelkii aan deganaayay la bixin lahaana iska bixi baa la yiri in yaroon faraha ku haystay ayaan iskaga bixiyay ilmo maxamed oo iyaguna iskuul ku jiray oo qaar England joogan iyo qaar kalena fee baa laga rabay marka waxyaabihii yaraa dumarku iska lululi jiray ayaanu iibiyay intii baa hadaba idinkuna inta haysta waa la tuunsanaa marka cigaalo marka hore tijaarad baa lagu tuunsanaa markaana bahasha qolada faraqdu kamid ah waxba ka soo gaar farihiisu way daldalooleen laakiin ummaday u daldalooleen caruurtana intaasaan uga imi $380 ayaa la soo jeedmay horteedna waxaan ka soo noqday UN kan u shaqeyn jiray 2 sanadood iyo badh oo intii mucaaradka haday wana mid ka shaqeeyo marka adaa inta UN ka u shaqeeyay ana UN ka Libya joogay WHO oo macallimad baan ka ahaa umulisooyinkan tababari jiray umulisooyinkii ugu horeeyay Libya ana u tababaray qaar kuwan tababaray imika waa retire garoobay maxaa marna Djibouti baad ka ahayd markii dambe waa ku 280 markii dambe 9 markaad noqotay meeru isaga soo muxidnay uu xidhay airport kaniga la iga xidhay adigana meel marka wad badeeday adigu maxaa sameeyay markaad ogaatay odayga la xidhay odayga waa xidhan yahay reerkii hooyo iyo walaalo iyo caruurtii wixii waa meeshii joogan tan waxaan laga haysto xaaladii ku nool yihiin garan maayo marka qasab bay noqotay wixii dhacaya meesha loo badan yahay danaha la yaqaan maxaa lagu sameeyay airport kay igu yimaadeen Ismaan Caana Geel baa igu yimid sidii wax protocol soo dhaweynaya la iska dhigay shandadeedii yareed waa la ii soo qaaday baasaboorkii ma anaga ku haynaa waa diplomacy waan ku haynaa inageenoo soo qaada gaarigii baa la ii saaray xaqii gurigeygii la ii geyn lahaa ayaa hodan la igu leexiyay gurigii hooyaa la geeyay otan albaabka la dhigay laakiin ma soo bixi kartid gurigii hooyada ma sha ayaa anta house arrest way ka fiican 6 bilood ayaa igu jiray markaas dharkan aan gashanahay waa dharkii qurbaha aan ku gashanaa dhar ma haysto Allahu gurigeygii way haystaan qof UN ka soo shaqeynaysa baan hoo xogay account bankayga dhowr iyo 20 baa igu jiray kunoo shilin ila shilimaadka bariga lagu shaqeyn jiray ayaa igu jiray waa la qaatay gurigeyga waa la qaatay waxa iga daran markaan maxaa ugu qaalisanaaye guriga ugu jiray waxyaalaha jaclayde waan ku soo wadaaye waxaan xataa galaaftay dahabkii hooyaday oo iyada maadaama hodan deganayd anna guri aan deganaade askari oo ciidan joogo waxaan tii hooyo waxan waa lagu soo dhici waa lagu dili doonaa kan halka kuugu hayee iyagana kuwaygii intii halkan tiila baan ku daray wixii la qaatay waxa kamid ahaa waxyaabo badan oo hadiyado seef dahaba
oo siiyay Sacuudigu waxyaabo badan oo maxamed iyo guriga aan ku sharaxi jiray waxyaabahaas oo dhan iyo waxay gurteen laakiin wax bay iga qaalisanaa waxaan xayawaankan jeclay waxaan soo koriyay laba shay marka kulay bisadaha iyo wax xayawaan iska jeclaa umalaada islaamaha caruurtooda ku mashquulaan أروح حيوانات يبان يسوق رجري هاري معد بوكا إيو جدودني أيان سوكري لابد ربايت بيقاتين لابد بس ده جورج بيسده هو سجى ورجعنا سجى شو كل سجى أي سجى شو ده صدقتير بكرة هاري معدكم ده حرا سكور ورجع شري ميرا كبقي شريني تمر ربايت بوها الله إحنا عندنا حمية اللي شري ويلك هي عديها هي كمان ما هو كل عيار يا ده هو كيرح حقت لكن هو عيار واحد شو جدودنا هلا متبوها مرك يعني جورج اللي يجي أي راح تبغى روح عن كبر يا بالجورج يجي هاي استبوه هاري معدكي يس كان ماي وحام سان أوبريي وحام ساو أباه أنا سو أوبريي سان أوبريي أنا ربح الكايسو بتبادي هل كيف كنت وقتين كل هرجي سو بيبسده نحرسنا ما يقلن مركا آد بين نحدين ويبيها مركي دمر دمان أوجاد إلا الدليل قولي روحوا فيلا سوماليا كيلو ريتو ما فيلا سوماليا مو هنا وحها قولي ليدو فيلا سوماليا ده بينها كجرا ليدو قولي ليدو كسر أنت كدب طبعا وضيق والله حلي هذا منشقات كسر هاد كشقيسي مركي دمبي انتي دمبي ده شغلة waa shaqo taa weligeed baa hayd halkaagi macallimadaadii waxa ma horta markii la iga dul qaaday ayaa maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa ii yimid reerku markii iga guureen hooyo iyo ciyaalku hooyo caruurtu iga guurtay ayaa waxaan u dhigay waxaan bixiyay 10 kun oo shilin oo deybaajiya baabuur iska rigo ah oo Toyota ah oo dabta reerka u shaqeeyo oo de wax biilkooda ayaan ugu tala jiray 10 kun ee aan bixiyay deybaajiga ahaa iskaba iloobay ila waatan qab iyo qub iyo xarig iyo balaya dhacday maalintii dambe ayaa waxa ay yimid sharikadii aan ka iibsanayay ayaa ii timid waxay leedahay baabuur baad naga dalbatayo deebaajigaasna waan ka haynaa gaarigana dee bil iyo dheeraad buu dekada yaalla dee ma baaqigii baad keeni oonu gaariga kuu soo saara ama mise waad fasixiyo lacagtaadii baan kuu soo celinaa ana 6 bilood horteed baa $3 la soo galay magaalada lacagtaydi كان وقارينا فصحة ده ويا ده صحيحه وأنا سيداي وحن كبلابي فارماسي وقت لوني شاف فارماسي أدنى إلى أمك في مكة مكرمة واحد فارماسي أدنى قريها كذا بيان دقناي فارماسي أدنى قريها كسور كذا دقناي فارماسي أدنى قارينا كجدك وقت المام بينقط تكاسان كبلاب waxaan bilaabay inaan halka markaa dumarka uur kale ku eego waxaan markaa bilaabay inaan mayorta waxa ka horeeyta farmasiga intaynaan gaarin anigoo halkii ku xiraysan ayaa juba gubatay hodheelkii juba gubtay jor waxa lagu soo reejooga ayaa waxa la doonayaa dhaawac badan soo dadkii baa hodheelka ka soo badbooday oo qaar gubtay iyo qaar jajabay iyo qaar haftay iyo de hodheel dhan oo dadkii ku jiray ay ka soo dayaaceen isaguna wuxuu ahaa kuwan day martay la isku xidhxidhay ee plastic u badan marka ololkii baa wada qabsaday markaas ay dhicidi farsamo caafimaad wax ka garanaysay halka kaalay fadlan isbitaalka digfeer degdeg u kaalay aniga xaaladda isbitaalada de waan garanay in ciidan loo baahan yahay albaabkii baan furay laba askartii meeshay taagantay waan soo baxay waxaan isbitaalkan tagayaa dhaawacaas lu tagayaa ee mawaydana raaci
مثال كده نقول سوق كوي لا اللي يدحي مركا أمرنا لغمسين توكتا أمرنا لغمسين كتينية إلاليهم بليل يبحنوا بليل لا يبحنوا توان صباح مركاسي إني مدتي يقول شيء ده نشوف كحشودة ده ما أمر مركاسي ده يصور راع إسبتال كاسي متجه ده يصور راع ده دوني سنة إسبتال كيباني داوعي دوري أفرتني موجي ومر وبلاوع هذا قبتي واحد شبي وحيبانو مالنتي أردن يهبينكي أردن كشقينين صبحي dambe markii waagi noo bariyay qaar la qalay ka soo noqdeen qaar la hagaajiyay qaar la kabay qaar dhinteen habeen iyo maalin isoo bixisa markaan shaqeynay baan subaxii dambe soo baxay askartii ba joogto waan soo lugeeyay gurigii baan imid askartii ma taagna maalintii baa askartii ugu dambeysay marka horta warqad la igu sii daayay iyo ma jirto jubbahaas ayaa markaas dadka ku sii daayay ummadda sii daysay ummadda iyo niyadoodan bay sii daysay war gabadhan meel xistaal tagtay dhaawac soo shaqaysay dabeetana iska soo noqotay hor ilaah ummadda wax uga qabatay halkii bay iga hadheen doqonnimada iyo xistaaladana way igu yaqiineen oo markaa haddaba lacagtii yareedee deebaajiga iyo timid markaasaan farmasiya furay farmasigiiba markaa dee dumar uur la ayay imanaya dumarkii uurka lahaa dee way dhalayaan dad aan hore uga dhalin jiray oo ma hargeysaan uga dhaliyay ayaa dee ka mid ah oo le labaan hore u dhalo labadaba iga dhaliyee min fadlak cid kale ha igu hadlayna iraac ana raac markaasaan raaci jiray markaasaan intaan istaalka geeyo ayaan ka soo dhalin jiro ama guriga badda aan kaga dhalin jiray halkaasaan markaa xaqal biilka iyo xaqal reerka iyo biyaha iskaga bixin jir halkaas ayay markaa sidaas ahayd dabeetana waxa i soo helay bilayskiiba haddana ay soo helay ma intaan horta bilayskii soo helin waxay helay dhakhaatiirtii talyaaniga ahayd oo anigoo cistaalkan wax ka dhalinaya oo haddana shaqaalihii meesha aan ahayn iyo sidaan ugu shaqaynayo iyo waxa aan qorayo ayay ka yaabaan ma dhakhtarad baa tahay ma umulisaanahay waa xageed ka shaqaysaa dee ma shaqeeyo gabadhan waan soo raacin ka dhalinaya dee haddaan kuu baahano maad nala shaqayn oo cistaalka bilayska madiina ayaanu ajaanibka kaga dhalina cidna farsamo taqaanana ma hayno markaa ajanabiga ii yeedhi jiray markaasaan tegi jiray cistaalka markaasaan uga dhalin jiray markaasaan xaqal jeebkaygana ka qaadan jiray markaasaan bilayskii isoo helay maadaama dabad cistaalkan ka dhaliso aan mushaaharo kuu qoro markaasaan haddaad mushaaharo maxaad ii qoraysaa intaa dee intaa idinku shaqayn maayo intii aan dalbaday baa laygu qoray kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii kun iyo waxa weeyaan waa koob iyo toddobaatan laba iyo toddobaatankii weeyaan markii hore ee aad halkan ka bilowday hargeysa soo noqotay koob iyo lixdankii kun shilin bay kun shilin bay koob iyo toddobaatankii bisaa lagu qaaday kun iyo shan baan ku siinaynaa bay yidhahdeen kun iyo shan boqol dee haysta baa kun iyo shan boqol adigu waxay dhahdaa miisaaniyadda dowladda waxaan kaa siin doonaa kun iyo shanta boqol bilaysku cistaalka bilayskuna wuxuu ku siin doonaa kun shilin 2,500 baan ku shaqayn jiray iga badnayd marka halkaas markaa shaqadii ku noqday dabeeto halkaasay ka sii socday markii waa tii dabeetana dagaaladii iyo waxba iska waxa dhacday in 1900 iyo 1970 horta waxa wadankii dee wuxuu iska noqday towradii uu halka noqdahay markaas hayaa markaas kolba waa la xidhaa markaas la soo daayaa markaas mar waxa la igu xidhay kaandiid baan ahaa oo waxaan ahaa soo bartayna oo tii waxaan ahaa kaandiid towrada ka soo horjeeda waxyaabahaas igu sheegi jireen markaa ka soo soco 1977 dagaalkii waxaa la galay Ethiopia waxaa laga horta waxaa jira 76kii ayaa horta uu diyaar garoobay siyaad barre maynaan uga soo dagaal buu diyaar garoobay anigoo markaa madiinadii ka shaqeeya
ayaa horta maalin laysoo la ii yeedhay wasaaraddii baa lagaa rabaa wasaaradduna markay wufuudu imanayso iyo ayay igu shaqayn jireen kaale oo la hadal oo kaale oo caynkan oo kaale oo wax uu sheego oo shaqaale xubin inta tababari jiray oo adigu igu shaqaysan jiray anna hawsha way igu yara badnayd markaas ay ma cid kale u dira idin ma imanayaan markaas ay ma waa amar waa inaad timaadaa wasaaraddii baa nimid qolkii hanuuninta oo afka laga joogo oo shaqaale caafimaadka oo meesha jooga ayaan soo galay markaa waxaa hadlaya nin baa hadlaya oday ah nin da-weyn oo le jaalle wasiir anigu xishidhood baa keli layga saaray suun ma xidhan karo xalana ma geli karo fadhiiso waryaa waad gelaysaa jaalle waad gelaysaa fadhiiso mid kala hadnala kacay anigu waan jilbala ahay oo gaardis ma geli karo jaalle fadhiiso waad gelaysaa markaa maxay dacwadii maxay tii isha cali ka laalaada mid keliyala oo xishidhood qalay iyo mid oday oo jilbala oo leeyahay waad gelaysaa waan gartay wax meesha la isugu yeedhanay tahay hay lay wado markaas ay jaalle waa habsaantay waa daahday xalna lagu geynayaa maxaad ka qabtaa markaas xalna la geynayaa weligaa baan rabay inaan xalana galo weligaa baan askarnimada jeclaa diyaar baan ahay waxay doonayeen inay raado maanigo caynkan aha maanaad geynaysa maanigo qof dumar ah oo la jaalle fadhiiso oo la bahdilo waxay soo xalana maaha soo military maaha weligaa baan rabay in militariga galo waa goormaa la gelaya isniinta la gelaya xaadir diyaar baan xalana gashay marka xalaan gal waa 17 marka waa 17 way 17 xalaan galay 11 dumar aan ahay mid uurku halkaas u maraya waa ku jirtaa odayaashii maalintii lahaa waanu jilbalaanahay waanu keliyalaanahay waana la mid waa dadka nugula jira dad inta imika aad garanayso xalana la geey uurka halkaas u maray waa ku jirtay gal waxaa la yidhi ku dhaxo mushaarka waxaa mayadoo calool weyn ma way iska calool weyneydee malaha dee sagaal maalmood adigu 6 bilood 7 maalmood ay ahayd dee markii dambe waxay u baxday way baxday waa la sii daayay markay bilyal nala joogto waa la sii daayay dee maxay sameynaysaa dee miskiinadu odayaashii dee waan iska fadhiistay baan jiray dareysku gashada oo sariiraha gigijiya saniyare cali guhaad ayaan la mid ahaa kala horin baan hayno midka ayaa ka mid ahaa kuwii ku jiray marka 4 bilood baan ku jiray gaardis maxaan ku idhaa guurguurasho horta caafimaad ka wanaagsan weligay ma soo marin qoryo shiish toogo waa kan cali halgan baa la odhan jiray waxaan ka noqday gudoomiye ku xigeen waxaan ka noqday horinta horjoogan ka noqday horintayadii taliye kooxeed hay horintayadii anaga horjoogo ahaa gudoomiye ku xigeenna laba horrimood baan ahayn show dagaal ayuu diyaar garoobay marka wax iyagan hu dhayrtayadan oo dhan wax loo soo xireynayay dagaal baa loo diyaar garoobay dagaalka waa kay dhacay maalintay igu naxdin badnayd markaan ka soo baxay horta wasaaradda caafimaadka la geeyo waaxda tababarka agaasimo layga dhigayo agaasimii ugu horreeyay qof dumar oo agaasimo laga dhigo ayaa noqday oo dhaawac baa markaa jiray fara badan oo laga soo gurayay dhulka xagga meelihii aniga mid dhakhtarana la soo raaciyay la soo diray ee dhaawacii soo gura maxaan haysanaa waa iska rogo ayaana la siiyey waxaanu ka soo qaadaynaa jigjiga gaadhigu maalintii ma socon karo diyaaradda looga baqaya habeenkiina leydhka ma shidan karo habeen baanu guuraynaynaa oo madow baanu sii maraynaa oo meesha uu dareewalku arki waayo kirishboy baa intuu la soo dego tooj yar ayuuna xagga ka yara baydh wadadaasoo dee aan samaysnayn baanu maraynaa horta kii dhakhtarkaa lay raaciyey jigjigo markaanu tagnay
ayaa wixii oo kaaramarna iyo wixii madaaficdii baa dhacaysa oo sanqadhii iyo onkodkii iyo qaraxii horta kiiba horta shuban ku dhacay ويسوق حلنا مصمرين حلنا مصمرين مديرو براوانيه بو هايو hargeysa markaan ka baxnay baan nooba horta nooba nala raacin ayaa horta ku dhufatay waagii baa bariyay habeen muxuu ku bariyay habeenkii oo dhan qarax waa dhacay madfac madaafiic baa dhacaysay subaxii baan isbitaalkii aan tagnay waa iska rogo waxaan haystaa waa hargeysa tim markaa timay wajigjiga soo inaan dhaawac soo gorma allahu akbar markaa isbitaal bad ka samaysateen timay isbitaalkii lagu jajabiyay wati la duqeeyay dhaawacii dhex jiifay ayaa de laga soo goraya oo wixii u baahan in hargeysa loo soo la keeno ayaa ka soo qaada marka inta soo boqol oo qof meesha joogaan mid farta yar iyo wax yar ku dhaceen oo de kala qaadi maayo wada wixii waa wax iska fudud midna mid calooshii ag taalo oo de wadada iska xijin maayo wada uu ku soo dhimanaya marka kaad istiraahdo waxba loo qaban karaa ayaad iska rogada soo saaraysa marka saddex caafimaad qabaan ugu qaylo badan qaar ismaba oga waxaan soo saaray 60 ku dhawaad wax fadhiya wax jiifa wax isku jiifa markaas maryahoodii baa ku duuban oo uraya oo qormayde dheecaankii iyo malaxdii iyo wixii intaas oo maalmood bay dhayma la'aayeen gaarigii baanu soo saaray gabalkii baa noo dhacay waanu soo dhaqaaqnay meel dhex markaan maraynaba gaarigii banjaray layd la'aan soo moogad waxa iigu dhinaxdin badnayd markii waraabihii hilibkii dadka uriyay una soo hujuumay na soo hareereeyay askar ma wadataan markaa askar hal askari iyo qoriyo adigu qori sitay markaa ma aan qori sitay hal askari baa la socday oo qori sitay marka xaggan eegto waa indhihii waraabayaasha xaggan kale waraabay wayna hareereeyeen markaas wuxuu ka waabayaa kan qoriga toojku ayuu ku eriyaa de xabada waan ilaashanayna malaha xabadeen malaha ma wuxuu sitay qoriga xabadii laba wuxuu sii garmay adigu taayirkii bedelanay anagoo waxba ku noolay baan waa berigay ayaan hargeysa soo galay qofka naga dhintay ee ku soo dhinta meesha waan soo qaadeen ila meel lagu aasay iyo toori maaye hargeysana waa berigii soo galay maantaas ay igu naxdin badnayd adii dhaawacaagii iyo waraabihii iyo dadkan dagaalka loo diray ee aan loogu talagelin dhaawacin ee aan loogu talagelin dhakhaatiir ee aan meel wax loo sii dhigin aad bay calool xumo weyn bay igu beertay markaas waxay noqotay dad badan oo ka kici lahaa dhaawacan day way qormeen dad badan oo loo badbaadin lahaa xubno way xidheen markaas dhiigii ka xidhnay dhiigii baa joogsaday marka la xidho way u baahan in la furo oo la sii daayo waxay noqotay in 2 toddobaad kale darar weyne askar ku tababaro sa dhaawac loo dhaawaciyo loo qaado oo 2 toddobaad ayaan maalin walba tagayay darar weyne xerada militariga oo tababar dhowr iyo 40 askar aan tababaray oo hadaba kuwa u qaybiya oo meelaha la kala joogo kala dira laakiin dadkan ummad u dagaalamaya waa inay helaan daryeel ka dhaama meesha la geynayna waxa ganad waa hangar weyn hangarkii raashinka isbitaal ma hangar weyn way meesha la geynaya laakiin sidee waxa joogay shaqaale iyo dad wax yar kala yaqaan baa joogay darxumo weyn iyo khasaaro weyn ayaa inaga soo gaadhay dadka dagaalamayay ee day anigu dhaawacooda aan arkayna dad Soomaaliland wada dhashay bay ahayn oo kuwana la horumarinay kuwana lagu daray dagaalka aad bay calool xumo weyn maxaa dhacay markaa ka bacdi intaad dee markii dambe haddana waanu soo noqonay xawar baan ku soo noqday odaygii markaan wada joognay waanu kala tagnay xasan keyd baan markaa iskuursanay dagaalkii ka soo noqday markuu dagaalkii ka soo noqday meelahaas loo diray 8 bilood buu ayuu joogay markaanu 8 bilood qabnay baa laga dhigay safiir markaana loo diray Cumaan oo laga dhigay safiir Cumaan baanu tagnay 6 sanadood baan joognay safaaradda Cumaan
isagaa furay laakiin sidee waan kulba waan soo waan shaqayn jiray wadada shaqo la inoo galay 1980 mar noogu timaadeen ayaana marka qalalaasa halkan ka bilaabmay gaduud baa bilaabmay markii jabhada balaaya dhacday xagga xamareed sanadkii laga soo noqday burburkii baabada qol mucaarad baa la sameeyay SNM baa jirta ayaa laga dhawaaqay London dabeedna waxay noqotay xare military dhulkii la oran jiray Soomaaliland Morgan iyo Balaaye iyo Jalowjaan iyo waxaas haystay ma garanaysaa qalalaasa bilaabay dabeedna dagaalada dhacay maxaad ka ogtahay amaad kala socotay amaad ka ogay dagaalada ilaa rugmadkii ugu dambeeyay 1988 idilamaan joogeen markaas oo waan markii Hargeysa laga dhigay la samay dhulka loo magaalooyinka qaarkood 80kii ayaan mar Cumaan ka imid walaalkayo ku jiray abaabulka iyo waxa iyo ayaan bariyano walaalkaale horta aniga wiiga raac waxaan iska aqbal in la keen waqti 35 sano xagaa joogay laakiin saas loo qaatayo joogida xagaa uu joogay de waxba ku tari karay way haduu isagu laba lugood laba gacmood ku raaco de xabad yar baa ku filay laakiin 35 sanadood uu joogay ama intii dagaalada ay socdeen 9 sanadood 12 sanadood dagaalku socday dadkii wax ku tarayay ayuu ahaa anaguna daan ahayn waanu soo noqonay anigu 84kii baanu ka soo noqonay Cumaan 86kii waxaan horta bilaabay 85kii inaan isbitaal ka dhiso xamar isbitaalka loo oran jiray isbitaal Edna loo oran jiray gidaarkiisu meesha xagga boole qaran gidaar dheer oo Edna hospital ku qoraa ayaan horta bilaabay kan waa kii labaad kaas horta horeeyay araasan ka bilaab tabeedana waa tii kolba la iga joojiyo kolba la iga daadiyo kolba la soo noqdo 86kii ayaanu kala tagnay ninkii aan markaa wada joognay isaguna rasaab xaqan ka ahaa dabeetana xamar baa loo soo bedelay arrimaha dibadda joogay waanu kala tagnay WHO anigoo intii hore Soomaali aan joogay dalka Soomaaliyeed waxyaabo badan oo aan bilaabay baa jiray 63kii markii xamar aan tagay in yaroo kooban baa waan isku raacnay maxamed gees ayaa ka Saciid maxamed gees baa kamid ah maxamed abihi iyo صح aniga iyo islaantii inda deeqee odayga Michael ka dhintay iyo dhowr caynkaas ayaanu isku urursanay ururka bisha cas oo samafalka abaan samayn waxaan ka noqday xoghaye guud ayaan ka noqday waxa markaa xamar markaa aan ku noqday 84kii 85kii aan istaal kan bilaabay wixii aan hayay oo dhan markaa istaal ka galiyay wati wabrigi shidaalku raashinka ahaa ee 5 litir saf loo gali jiray wati sonkortu raashinka ahayd buug yar wax lagu qaadan jiray lacag ma haysto ururkii bisha cas ee aan wax ka aasaasay in distoorkiisa wax ka qoray ee aanu dhowr iyo 60kii xoghaye guud ka ahaa ayaan shaqo u doontay oo wixii yar yaray bariga amaanta bari jiraa jooga meesha bal CV-gaaga keen de CV-gayga waa keen adiga wax kugu baray bal isniinta noo kaale maanta shir baanu leenahay waxaan daba ordayaa mushaharta 700 oo shilin inaad ka hesho isniinta kaale xaadir arbacada soo noqo waan soo noqdaa hebel ma joogay hebel heblayo soo waaya shidaalkii yaraayay 5 litir maalinta aan soo qaato wuxuu iga baxaa bisha cas daba orodkeeda iyo hebel daba orodkiisu iga baxaa islaanta hooyadayba kirada yar ee guriga aabo ee berbere iyo Hargeysa inta kirada ayaan ku biilayaa iyadaan kolba aan ka qaataa 5 litir iyo marka waxa sameeyay shaqo yar oo islaanta horta bilbiilkeeda horta aad ugu dayso kaga kaaftoodo doono shaqa meel aan isla shaqad ka helaysan taa bisha cas baa jirta
ayaa WHO bay la soo xiriiray xafiiska WHO baa la iga yeeray waxay degdeg baa lagu doonayaa kale wafti imanaya iyo bay ku leeyeen bal raac oo waf celi ana shaqadii yareed bay iga dhex galayaan in eryanayeen ayaga eryanayaan berrito waa tii layla ballamay waana adigu degdeg u kaalay waana mid warqad baa la dhiibay waan akhristay waan fadhiistay waan akhristay mar labaad waxay si degdega waxaan ku doonaynaa inaad timaado xarunta WHO oo regional advisor ka noqotid oo ku ilaa tan ka hadal nursing midwifery advisor ka noqotid oo ku yaala Iskandariya Alexandria marka waa North Africa iyo North Africa dalalka Carbeed oo dhan ilaa Afghanistan ayaan xukumi jiray Afghanistan Pakistan Iran inta carabta oo dhan marka halka lagu qaato waa 68 sagaal waxa la yiri hore lagu shaqeyn jiray oo deer passportku la sipasayga waa lagu hayaa ticketka inta lagu goynayo baad haystaa degdeg baa lagu rabaa waxaan ku baxay matter of weeks waxaan xamar kala dhoofay $30 ayaan kala dhoofay United Nations kii baan tagay kursi baa xafiiska baa la fadhiisiyay waxa la yiri berrito iyo saad dambaba waa uu xidhan yahay xafiisku oo waa weekend iyo Eid baa jirta maxaad horumaris u baahan tahay ta horumaris maxaan u baahan maana idin shaqeeyay waxa ma mar hadaad contract ka saxiixday horumaris baad leedahay $30 baan isku ogahay samoogid oo maxaa la ogol yahay $30 ta waxa mushaharkaaga kala 50% mushaharkaaga waa lagu ogol yahay oo hadaad doonayso maanta waa inaad qaataa maanta mushaharkaagu soo kumsa lagu qaatay te marka 7,000 iyo 8,000 meelahaas ay ahayd oo dollar iyo gurigi iyo baabuur ma guriga waad ka karaysanaysaa ee waxa ku dheer safarada iyo gunooyinka iyo waxa ku dheer 700 waan daba orday 7,000 ilaahay iyo darajo ana waligay ana filay halka inoo joogo halka inoo taagna qaybo kale oo kamid ah أبناء آدم إسماعيل وأن كل أنيقو وأركو إنان مدقابا إيه برنامجية ريال إيه إنقابا لقاحي سبحي كرين هسي أشياء سوء أرورية قيبا بدنو كمدا قيبا كلو مهم هنا وإيه هنالي هل كاينو تاقني وإنو توضبات كتبني أدنى محصتين هذه أبدا